dawooyin baa lagu shubay indhuhu yar ilmeeyeen iyadoo wax arkiso caadiya dhakhtar baan geeyey goorma 5 bilood bay jirtay way dibadna markaan dhakhtarkii geeyey inanteedu taa wata ili way ka soo dhacday ishii kalena way qaraxday markay qaraxday xuub bay noqotay xuub markay noqotay halkeedii bay ku noqotay isla subaxnimadii baan indhihii godkii ka soo baxay baan dawadii u geeyey xalayo kalaana ku shubay dibadna markaan u geeyey wuxuu iga qaaday dawadii iyo warqadii iyo jeebka gashaday dadna wuxuu yidhi inna lilaahi wa inna ilaihi raajicuun adeer saan u waday iyo say u dhacday isma laha waxyeelanu ismaan lahayn laakiinse waxyeelay ku noqotay nantiire indhihiina way gubteen waxbana lagama qaban karaay waxaan ku yidhi jisaa la khayr maalinta iyo qiyaamihii la qatay la qaawiyey iyo adeer noo tahay baan ku waa agoon asma jaamac abdillaah awood ma hayo itaalo ma hayo waad arkaysaan laakiin maxaa ah caalamkayga iyo Soomaaliyeed iyo dadkayga baan dhex joogaa alxamdulillaah rabbil caalamiin saasaan ku salaamay agaasimo guud adoo mahadsan hadda tira waxa dawadii Sanofi u keenay weyda ama liili lahayd maada iibsanaya Maxamed way iibsanaya 80% dadka waxa ma haystaan waxaan u keenay waxay iibsan karayaan de quality-geedina la eegay taa hadii xanuunka si xanuunkay maxaad u wadataa gaariga wadada qaldan maraya xaqan ku yaala bahalkiisi xalaameed u marinaysa waa qalade dadka deysi waxa loo marinayaa de isweydiiya waxa loo marinayaa yuusufow xuquuqda muwaadiniintu ugu leeyin baynu ka hadlaynaa maxaa ku diidaya agaasimaha guud wuxuu sheegay in kontrabaan dawooyin lagu soo geliyo wadanka maxaa ku diidaya inaad saa doonto dawada u soo gali karto iyadoo laga eegin marka waxaad ugu leedahay aqoons buu ku xidhayay inaan mashiinta yeelo wuu ku xidhan yahay waxaan u soo taagnaa horta China waa meel lagu sameyn karo wax alla waxa doontid qof bani aadana oo sidoo weegi hadda tiraad geyso waa lagu sameynaya waxaad qaadanaysaa bucketka kartoonka dawada ay Bristol ka tagtay UK sideedii baad u qaadanaysaa China tageysa waad geynaysaa anigu markaa wallahi waan qiiroonaya waxaan u taagnaa barigaan roogan doona 2014 waxa jirtay imka dadka ugu waaweyn ee soo dejiya dawadu in ay hospital la furteen haddana waa kii keenayay waa kii ka keenaya ansixinaya oo xeerkiya waa kii iibinaya farmasiyada ka iibinayay waa kii qofka shay baadhayay waa kii dawada u qorayay heerka ay wasaaraddu bal roolka ay ku leedahay agaasi dawo magaceed buu qoray dawadaasi waa dawo caadi oo shirkad leedahay dawada shirkadu leedahay wuxuu ka soo iibsaday beeshinkaasi qof farmasiyiintu meesha kala baxay agteeda ah dawada waxa la soo siiyay aan dawadii ahayn ayuu soo qaatay uu yimid waxaan ku yiri xagu ka soo qaatay waxa la igu yiri isagii qaali bay noqotay meel kale ka soo qaatay waxaan doonayaa inaan soo koobo maanta agaasimi ma noo ballan qaadaysaa inaad waxaagii computer nooga soo dhigto qof kasta meel kastaana uu soo qaato dan doonaya waa halka inaad nooga ballan qaado insha Allah marka saas ugu dareenkan qabo markaas wuxuu yahay khalad wuu jira aad u xoog badan laakiin sixitaankiisii baa lagu jiraa ila goorma la saxaya sixitaanku intuu qaadanaya muwaadiniintu goorma xaq u leeyihiin yaan la gaarin waqtigii adduunyadu casri bay noqotay la sixi lahaa ama dariiqii lagu sixi lahaa ama laga doodi lahaa oo ummaddu miiska wada fadhiisan lahayd inaan ka shaqeeya farmashi baa soo wacay wadanku maaha magaalooyinka waaweyn oo kaliya tuulooyin baa jira oo aan la gaari karin inankaas waxaa u timi maamadaasi waxay aad maamo pregnancy waxaan ognahay dadka hooyo uur leh maamadaasi waxaa jira dawooyin aanay qaadan karin waqtigay uurka leeyihiin maamooyinku inankaasi wuxuu ka baqayaa shaqadiisa inuu ku waayo inuu waxa weeye dawadii khaldaneed uu bixiyo inuu ku waayo yani aqoon ma laha magacaygu waa Cabdiqani Maxamuud waxaan ka yar sheekaynayaa in qisay yar aniga ga dhacday isbitaalkooda ku yaala magaalada Hargeysa 2019kii abaar 4 subaxnimo ayaan xanuunsaday oo xanuun markaa kadiisii ugu soo booday dhakhtaradii bareefadka kii ugu dhawaayay markaa la islaha waa dhakhaatiirta ugu waaweyn ayaa la geeyo magaciisa waxba sheegi maayo laakiin isbitaalada ugu waaweynaya markaa xanuunkaygu wuxuu noqday in dhagax uu kalida galay